waxa dhacday wadanka ka dhacay dagaalo halkii wadanka dib loogu xoreynayay muddada laga maqnaa waxay ku keentay nidaamkii biyaha iyo pipes-kii systemkii ba dagaalkuna dib u gaarsiiyay runtii dayac badan oo ku yimiday beebka hadii laga tagay isagoon lagu shaqeeyo biyo ku jiraana wax khasaaro badan baa soo gaadha markaynu soo noqonay oo la soo kakabay oo la soo toosiyay biyaynu soo saarna maanta waa xawayaan 9 kilometer cubic ilaa 45 foosto inay taabaan filaya marka halkii meter cubic 5 foosto biyahaas Hargeysa mooda gaaraan badankeedana ma gaaraan sidaad u ogsoontii runtii biyaha waanu qayqaybinaa inta u badan waxay u badan tahay yani inaan biyo ku filan runtii ka helin laakiin waa biyo caafimaadkooda iyo xaaladooda caafimaad runtii aad ay u sareyso oo aad u wanaagsan mashaariicda biyaha imika aynu wadno muddana aynu soo wadnay waa runtii qorshaha yaala iyo rajada kala ata ee aynu ka rajeynayno biyaha caasimadda inaynu ku kordhino baahida caasimadana wax badan ay ka taraan mashaariicda wada ogtihiino waxa ay nagala shaqeeyaa hay'ado badan oo caalamiya oo ay ka mid tahay Midowga Yurub ay ka mid tahay Sanduuqa Horumarinta Somaliland ay ka mid tahay Bangiga Horumarinta Jarmalka ee loo yaqaan KfW oo matalaya dawladda Jarmalka ay ka mid tahay hay'adaha ay ku jiraan World Bank GIZ oo midba waxun hal lahaade u badan Midowga Yurub iyo Bangiga Horumarinta Jarmalka iyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland iyo Coca-Cola Africa Foundation intaas labun baan ay kala baxaan qaybna waa qayb magaalada dibadeeda oo ceelashii nidaamkii biyaha soo tuurayay pumps-ka lahaa loo yaqaan booster station-ka ama pump station-ki pipe cusub in la soo dhigo oo kan hore uu daalo waxa weeyaan yani dayactirkiisa kharash ku baxo kala taaba hawlo magaaladana lagu keenay biyaha halka loo yaqaan kaydkii hore ee biyaha dadka qaarna oo yaqaan kaydka Chinese qaybna waa qayb markii halka la soo gaarsiiyay biyaha magaalada loogu qaybinayo oo haddii nimka biyo dheeraad magaalada keeno aanu ku soo shubno kaydka Chinese inta badi cabi doonta waxay u badan tahay intii markii horeba waxa baysay laakiin magaalada qaybihii bilaa biyaha ahaa ma gaarayaan biyuhu markaa qaybihii bilaa biyaha ma gaarayaan marka qaybtii magaalada gudaheedana waxa weeyaan waa dawladda Jarmalka oo rajeynayno mashruuc in ka badan 90% magaalada Hargeysa inuu gaarsiiyo network-gii pipeska ama dhuumihii biyaha qaaday samarhaanta xaafad kasta oo magaalada uu ka dhiso barkad cusub degmooyinka magaalada in jeeda halka markii hore ahaa biyaha lagu soo qeymin jiray kaydka hore Chinese imika matalan oo kale joogna Axmed Dagax oo kale kaydka Axmed Dagax looga dhisay halka Al-Huda la yiraahdo oo noqdo ka degmada Waraabiya Maxamuud Haybe saasila ka laga dhisay Manhal marka magaalada guud ahaan waxa qorsheysan wajiga hore ilaa 8 kayd afar waaweyn u dhisay mashruuca uu maalgelinayso dawladda Jarmalku iyadoo mashruuca dawladda Jarmalka ay wakiil uga yahay Bangiga Horumarinta Jarmalka ee loo yaqaan KfW mashruucaas dhisay afarkeeda waaweyn oo 8 kilometer cubic halka imika nidaamkeena hore kaydkeena hore jira gabigiisu waa 4 kilometer cubic 8 kilometer cubic mid laga dhex dhisi doono kaydkii hore Chinese-ka xabad laga dhisay Axmed Dagax Maxamuud Haybe halka laga Manhal iyo gacan libaha halka ka dambaysa Geerisho Cali ama Buurta la saaray waxa inta kabaya oo la socda afar yaryar marka loo yeeyo kuwaas oo dhisay mashruuc kan xajmihan aad uga yar oo maalgelinayso Coca-Cola Africa Foundation shirkadaas afarta keeda yar dhisay waa ina naxar oo kan ka dambeeyay Al-Huda biyaha ka heli doona kaayna naxar waa hore u tageen xilmaanada qaar waa gabagabo kii masalaha isaguna taangiga dheer 12 mitir kor u kacsan waa gabagabo marka halka waxa iskaga dambeeyay waxa weeyaan waa ka Al-Huda Buurta Naxar iyo masalaha labada yar waxa dhisay marka Coca-Cola Africa Foundation halka Maxamuud Haybena Manhal markanu ka dhisno Jarmalku mid weyn ka dhiso oo kabi doono mid laga dhisayo singa oo isaguna yar size ahaan laakiin wax badan xajmiha yar laakiin wax badan tari doona halkan magaalada qaybteedan dooxa dhinacan ka soo xigta iyadoo waxa laga dhisay kaydka gacan libaax ka laga dhis doona kaydkii hore Chinese-ka
iyo mid uu dhisayay mashruuca Coal Africa Foundation oo laga dhisay halka gantaalaha oo isaguna iminka gabagabo ku dhow. Marka qaybta ay Coal Africa Foundation maal gelinayso waa qaybta iminka shaqada gabagabada ku dhow. Pipe-kiina meel fiican marayo. Afartii barkadood ee yaryar ay ku jirayna ay gabagabo yihiin maanta. Ay maanta ku dhow yihiin gabagabo. Shalay xildhibaanada qaar weyn la joogeen. Waad arkayseen hawshii socotay oo ahayd mashruuca Jarmalka laftiisa inay socotay nidaamkii shaqada fulin lahayd, shirkadii shaqada fulin lahayd, nidaamkii lagu keenayay ay ka wada shaqeynayeen hay'adaha Jarmalka ee wadanka inoo jooga ee mashruucan inoo qaabilsan iyo wakaaladda biyaha Hargeysa. Marka mashaariicdan hal mid bay leeyihiin oo waa mashaariic infrastructure waxa weeyaan waana loont waqtigooduna uu dheer yahay. Sababta waqtigooda dheeraynaya waxa qayb ka noqonaysa iyada lafteeda Somaliland waa markii ugu horeeyay mashaariic caynkana laga fulinayo lafteeda oo iyada lafteeda waxa weeyaan oo ku cusub hay'adaha caalamiga ee la shaqeeya arrin ku cusub runtii. Mashaariicdaas waxaan iminka faahfaahinkii magaalada gudaheeda. Magaalada dibaddeeda waa mashruuca iminka qaybta pipe ama dhoomihii biyaha soo qaadayay ay gabagabada ku dhowdahay 600 mitir ilaa 700 mitir wax u dhaxeeya dhiban maanta. Halka shaqadii kale adkeyd ee chamberskii halkii biyaha laga control engineer-kana faahfaahin doonaa ay dhamaantood gabagaboobeen. Amba waxa 27 ma hayeen laba mid baa harsan maanta oo la bilaabin soo far 27 ka xabee sagbadii waaweynaa ee beebka laga controliyay air faafisa amba waxa la oran qaybta beebka waa gabagabo. Hal dib u dhac baa ku jiray mashruucaas hore ee midowga Yurub maalgeliyay iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo isaguna maalgelinta qayb ka ahaa labada donor baa ku jiray amba qaadan bixiye. Halka dib u dhac ku jirayna wuxuu ahaa shirkadihii qandaraaska hawsha qaatay waxay iskugu jireen shirkado wadaniya qaar gobolka laga leeyahay iyo qaar caalamiyaba. Marka shirkadda qandaraaska weyn ee haysatay midland dhigista beeb iyo rakibida maxaan yiraahdaa qalabkii biyaha soo tuurayay mashiinada lahaa ee bamska lahaa electromechanical loo yaqaano waxay shirkadda Ethiopian oo loo yaqaano Awash World sida warbixinii hore ku siinay oo kula jirtay heshiis waxa loo yaqaan consortium amba waa iskaashi shirkad Faransiis Ethiopian kuna baabkay dhigaysaa qolada Faransiiskina qalabkii biyo soo tuura ayay soo sameeyeen France ka keenayeen rakibayaan kadibna marka halkaas taas waxay hal contract bay amba hal qandaraas oo labada qolood haysteen waxa iyaduna garab socotay qandaraas isagoo xajmi ahaan ka yar ka oo shirkad reer Somaliland ay gacanta ku haysay oo wadaniya qandaraaskaas isagu wuxuu ahaa diyaarinta dhismayaasha ay yeelan doonto xarunta cusub ee biyo soo saarka. Xarunta cusub ee biyo soo saarka waxaan u jeedaa xarunta kaydka cusub ee biyo ku soo ururiyeen marka ceelasha laga soo qaado. Halkii generatorska cusub lagu dhex rakibay dhismihii generatorska lagu dhex rakibay kii bambiska ama boosterska biyaha soo tuuraya ee magaalada ku soo riixaya lagu dhex rakibay iyo halkii shidaalka lagu keydinay afarta dhismo waa meesha shidaalka waa kaydka cusub ee barkada cusub ee biyaha ceelasha ka soo urura ku soo dhacayeen iyo labada dhisma midna lagu dhex sameeyay generatorradii waaweynaa oo generator waaweyn keenana weyna yaalan badankoodii iyo halkii bambiska lagu rakibay afarta dhisma shirkadda mushkiladda ku dhacday waxa ay laba aanu filayno oo shaqada ku adkaatay marka ay keentay dib u dhac shaqadii looga baahnaa 9 bilood inuu 2 sano dheeraad uu jiitamo 2 sano markay dhawaad ay gacanta ku haysana laga qaaday maxaa laga qandaraaska oo sagbada quality-ga sagbadeedu aad u liidata staff maxaa laga ku filan oo skilled oo hayn iyo maxaa laga iyo waqtigii oo ku aad ugu dheeraaday taasi marka waxay laga maarmaan ka dhigtay shirkada in meesha laga saaro way shirkada dhismayaashaas marka si dib u sii dhacaan maxaa dib u sii dhacaya xaruntii biyaha soo tuureysay in la sameeyo oo meeshii generatorada lagu rakibi lahaa ma jirto kaydkii biyo ku soo ururiyeen ma jiro oo dhismihiisa bada diyaar maaha barkadii diyaar maaha ma jirto halkii shidaalka lagu keedinay ma jirto halkii bambiska boosterradii waaweynaa biyaha soo riixay halkii lagu dhex rakibay markasta marka hawshaasi habsaanto waxa iyaduna habsaamaysay shaqada shirkadda Faransiiska ay qabanayso oo ah soo sameynta iyo rakibida qalabkii biyaha soo saarayay amba diyaarinta qaybta electromechanical ka ahayd shirkadda heshiiska waxa laga qaaday sanadkii hore bishii 6 marka shirkadda heshiiska laga qaado iyaduna waxa arrin kale oo xasaasiya noqota compensation-ka ugu dambeeyay shirkaddu helaysa marka shirkaddu waxay ku gorgortamaysaa markastaba inay moogtayaan sidii maadaama meesha ka sii baxayso
wixii compensation ka ugu dambeeya ayaa issue magdho shirkadda wixii shaqo ay qabatay arintaas in xalinteeda taasi waxay nagu qaadatay ilaa iyo February 2018 bishii labaad waad garanaysaa wadankeena marka cid heshiis laga qaado ma hawl ma runtii ma hawl arrimaheedu way badan iminka shirkad cusub baa soo gashay iyaduna wadaniya marka alxamdulillah shaqada 5 bilood bay qabsatay 5 bilood baanta waxa July bay kaga egtay 22keeda soo qorshu yahay progress wanaagsanna way sameysay arinta marka hore taagneed baa shirkadaha maxalliga marka wax la siiyo mushkilad lama maamuli karo heshiiskoodiina kama soo baxayaan muran joogta baa jira laakiin shirkadan cusub iyadu waxay markiiba bedeshay maxay image-ki oo sometimes shirkadaha ajnabiga ah iyada xagga progress-ka shaqada marka la eego iyo rabitaanka shaqada iyo qaabka ay shaqeynayaan iyaga ka fiican qolada ajnabiga marka xitaa wixii damage-ki image-ka xagga sawirka ah uu saxan yahay marka horta mashruucaasi waa sidaas waxa ku jira midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland qaybo kale oo mashruuca laftiisa wali inaga maqan way jiraan oo fankiisu la hayo laakiin ku xidhmay Somaliland Development Fund sanduuqa horumarinta Soomaaliland wuxuu ku jira muddo kala guura oo phase 2 gibu galaya marka mashruucan hore shirkadii maamuliyay laftiisa Mount McDonald iyo la yiraahdo lafteeda de contract-goodii baa dhamaaday marka taas waxay keentay mashaariicdii hore gacanta ku hayeen inay si dhaqso u dhameeyaan wixii cusbaan la bilaabay laftiisana lagu riixo maxaan iraahdaa de wajiga labaad iyo shirkadda labaad ee maamuli doonta ku soo guuleysatay tartanka cid la shaqeynaysa shirkadda sanduuqa horumarinta Soomaaliland mashruuca imika waxaan ku rajaynahay laba midba inay sanadkan gudihiisa si wanaagsan ugu dhamaadaan qayb waa pipe-ki oo 600 ilaa 700 mitir wax u dhaxeeya ay dhiman tahay qaybtii dhagaxa ahaydna runtii dhagaxuna isaguna mushkiladooyin buu hayo wax laga yaaba imika maandheedu waxa dhacday waxay 2 weeks mise 2 week iyo mise 3 week 12 mitir bay qodayeen kala yani maalintii 8 saacadood la shaqeynay kan bilifta yani maalintii maxaa progress-ku yahay 2 week tahay marka 12 mitir la qoday 2 week 1 mitir xitaa wax ka yar bay sameeyeen oo dhagax oo wadankiina waqtiina lama ogolaaday wixii explosives kala oran jiray ay shaqada fudeeyeen qaraxyadii oo cunaqabatayntii hubka jirtay saarneed Soomaaliland iyo Soomaaliya marka UN ma aqbalayso maamulka shaqadana waxa gacanta ku haysa UN ta ku haysa inagu dawlad ahaan waxaanu leenahay in dabagalka ayaynu la hubinaa iyaga warhaynta ciidda maamusha mashruuca UN Habitat cid ay xil saaratay hubinta tayada mashruuca waa shirkad Sharmaloo loo yaqaan Fitchna Water and Transportation cidda qandaraaska haysata waa shirkad Ethiopian oo loo yaqaan Awash oo kula jirta heshiis waxa loo yaqaan consortium ama iskaashi shirkad Faransiis oo loo yaqaan Felges Mazon wixii soo haray waxa haysta shirkad reer Soomaaliland oo qaybta dhismayaasha inay sheegay horta marka mashruuc structure-kiisu waa caynkaas dilayga amba dib u dhaca dhinaca mashruuca jira of course taasi oo uu ognahay laba sabab ugu waaweyn mid waxa weeyaan shirkadda localka wax badan ay ku habsaameen oo shaqadeeda shaqooyin kala ku xidhan midna waxa weeyaan taadeeq bixiyaasho qaran bixiyaasha oo lacagayo wixii dhinaaba la raadinay markii la helayna sanduuqa horumarinta Soomaaliland waqtigiisa hore marxaladiisa hore gabagaba noqotay runtii oo phase 2 hal suuq wixii ku xidhnaabay noqotay mashruucan aan shalay u fadhinay madaxweyne ku-xigeenku uu furay qandaraaskii biyo-gelinta magaalada gudaheeda ama biyo-qaybinta magaalada gudaheeda oo mashruuc runtii aad u weyn oo dawladda Jarmalkuna ay maalgelisay wuxuu socon doonaa qorshihiisu waxa weeyay maalinta la bixiyo contract amba heshiiska mashruuca waa muddo 3 sano marka waad qiyaasi kartaan Hargeysa gudaheeda oo yani Hargeysa oo dhan oo la dhigayo baab iyo kii waaweyna kii yaryara barkada cusub la qodayo inoo garanayna arrimaha dhulkuna kaabad yaraa la dumiyaaba si xasaasi u tahay ama diirkii yaraa la jiiraaba sida hawlihiisa yani aad uga dharagsan iyo qaabka ay yahay maxaa nidaamkaasi ma qorshiisu waa muddo 3 sano waxaanu aad ugu rajaynahay mashruucaasi inuu isagu noqdo yani mid si weyn u taabagala insha Allah hay'adaha dawladda dhamaantood ay ugu horeeyaan golayaasha sharci dejintuna uga baahan taageero badan oo dhinaca sharciga waayo shuruucda aad ku qabyada aad xaqaas oo kale waxaan filayaa lafteeda waa qayb weyn bay ka tahay runtii iyo dawladda hoose absolutely marka mashaariicda xaaladooda gudoomiye waasa imika biyaan soo saarnaa waxa weeye waa 9,000 oo mitir cubic maalintii ilaa 45,000 oo foosto hadhow waxaan filanaa inay gaadho ilaa 20,000 oo mitir cubic 20,000
oo meter cubic marka mid ugu weyn waxaan yeelanaa infrastructure-kii biyo dhameystiran oo casri ah mid ay noo taalaan waxay noqonaysaa ballaarintii biyaha dhow toole infrastructure-ka horta waxa ugu wada waa infrastructure-kii biyuhuna meesha biyo fiican baa ku jira geedeble iyo aagiisaba biyo wanaagsan baa ku jira marka in la sii ballaariyo ceelasha oo kolba mid systemka lagu soo xidho taasna waa ta ugu yar laakiin infrastructure-kii dhammaystirnaa lahaa dee nidaamkii biyo soo saarka oo dhan pump station-kii pipeski nidaamkii biyo qaybinta kaydadkii oo fiican baa noo dhammaystirmaya laakiin kordhinta nidaamka biyuhu waa qorshaha labaad ee u baahannahay marka 20 kun inaynu ka kordhino oo Hargeysa waxa lagu qiyaasay 20 sano gudood meelahaas inay noqoto dalabka maalintii baahida biyo maalintii ilaa 60 kun oo mitir cubic 60 kun oo mitir Hargeysa de koob balaaran baa ku socda dhismayaasha casriga ma sha Allah marka wataas oo mahadsantiin marka eeriyada halkaas waxa weeyaan ceelalkii Geedeble weeyaan dhinacan waxa la yiraahdaa shaqo leh halka dusha bluegiina waxa weeyaan hore hadlay hoosna waa Hargeysa weeyaan marka waxay iyadu iyo maxay SDF2 ay lagu daaqanin inuu hagaajino pipe-ka nimanaya Geedeble imanaya soo maraya halkan imanaya meeshii Chinese-ka marka runtii maxaa heeday waxaanu sameynay 23 kilomitir oo pipe-ka aad arkaysaan ayaanu cusboonaysiinay marka imika 300 mm weeyaan laba pipe oo 300 mm 600 mm baa ka dhignay marka waxay qaadi kartaa ilaa 30 kilomitir maalintii oo soo gali kara imika 9 baa soo maran labada laakiin tan waxay qaadi kartaa 30 kun ilaa 24 bay si wanaagsan 24 kun bay maalintii qaadi kartaa waxaan ku daray markaas biyaha loo soo kordhiyay 3 ceel oo cusub ayaan halka hore hadlay ka sameynay oo runtii aad u wanaagsan eeriyadan shaqalo la yiraaho iyada lafteeda waxaan ka qolnay ceelka baanu ka qodnay tijaaba ceelkaas isaga kaba si wanaagsan eeriyada la yiraahdo Geedeble marka waxay ku tusaysaa eeriyadaasi inay runtii biyo wanaagsan halka ay ku jiraan marka mustaqbalka hadii doonayno waliba sii kordhino waa meesha kale aynu guuri doonaa hadii la yiraahdo markaynu lacag hagaagsan helno imika sidii uu idin sheegay Maxamed 3 raaceel waxa soo xidhaya pipe-kaas oo SDF2 ay sameynayso qorshaha ku jira pumping station-ka cusub ee uu macnaynayay Maxamedna waa halkan marka halka waxaan ku sameynaynaa markuu dhamaado dhismihii 2 pump 3 pump oo maxaa yahay midkiiba qaadi karo 500 meter cube per hour marka runtii waxa weeyaan si wanaagsan bay ugu keeni karaan biyaha Hargeysa hadii la yiraahdo marka kordhinta biyaha marka la kordhiyo pumpskaas way soo kordhin karaan iyaguna pipe-kaasina uu cusub yahay ilaa Chinese ku keenaya pipe-kaasi 23 kilomitir buu ahaa 600 mitir u baharsan marka soo dhawayinta dhagaxa ayuu baharsan iyo chamber laba chamber oo loo baahan yahay iyagana in la dhameeyo hadii la yiraahdo 3 raaceel iyagu way dhamaadeen oo reer waa biyahoodii waaba socdaanba markanu u baahno baynu ku soo xidhanaa halka Chinese-ka markaynu ku xidhno waxa ka ku xiga package-kii ay nasiyeen Jarmalku package muxuu KFW marka pipeska waa weyn ayaa soo qaadaya oo geenaya Axmed Dhagax iyo Maxamed Haybe dhinacana waxay ka tagayaan gacan libaax marka insha Allah distribution-kaasi marka dambe isku mid buu noqonaya waayo imika hadii biyaha la keeno halkii hore u dhina maraan ma waa in biyo tagaan maxay yahay meeshii loogu talagalay imika ugu horeyso Axmed Dhagax iyo Maxamed Haybe labada ugu waaweyn la doonayay la gaarsiiya waxa weeyaan waa labada xaafadood marka direct bay uga soo baxayaan Chinese halka maxay yahay Chinese reservoir marka waa ka reservoir labada reservoir loo dhisaya marka dawaali ba halka u tagay ilaahay dadkii wax rajeenina marka inaan inta ku dhameeyno